maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa bilaabay sirifay ay marinayaan xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Berbera gaar ahaan xaafadaha dhinaca xudunka ee xeebta xaafadaas oo la marinayo sirfayga isla markaana laga hirgelinayo goobaha adeegyada aasaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waliba ammaanka gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali iyo waliba xogayaha fulinta ee dawladda hoose Cali Maxamed Cilmi iyo xubno kale oo ka soo jeeda xaafadaasi ayaa ka warbixiyay howlgalka inaan aad u sheego dadka halkan tuman ee xaafadan degani inay yihiin dad qayb ka ah horumarka gobolka kun ahaan sida gudoomiyuhu u sheegay markii aanu wada tashanay anagu isweydiinay waxaanu aragnay haddana maamulka dawladda hoose inay yihiin dad u bisil in wax la qabto oo ay raali ka yihiin haddii xagga waddanka marto dhanka kalluunka ka soo baxaya dadka ka cabanaya inay waddadu ay martay qof position aan waasiinayna ma jiro qof walba sidiisa ayuu helaya qof waxay ku bishaaraysaa qof meel weeye inaan dadka ku dhaqan iyaguna xaafadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay hawlgalkani iyaga oo tilmaamay in ay rajeynayaan in hawlgalkaasi uu ku dhamaado si nabadgelyo Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee Cable TV magaalada Berbera.